maka iyo madiina iyo carabtii meeshaa joogtay khamriga way cabbi jireen markii islaamku soo degay markuu islaamku soo degay khamriga waa xaaraan lama odhan iyagoo muslim ay cabbi jireen saxaabada taqaana rag badan oo ka midi 15 sannadood bay cabbayeen 13 sano maka la joogay iyo 2 sano madiina la joogay 15 sannadood bay cabbayeen yaa cabbayay تي حمزة سيد الشهداء سعد بن أبو وقاص رجع تقانه ويا رجع خمر عبي وهي حلال بمركا وها وحانوها خمر تجارة وجبضا إلا تجارية رجع تاجر هذا درك طبيعي هذا أختي قوي حمل له استعمال شري نجا خمر جايبي يوم تاجرها يعني حوالك كاسو بكدرك سنة وحولها ميرا على لقتها wuxuu ahaa yani caadaadka ugu tirada badan lee bulshadu ay leedahay dadkan diintoodii iyo iimaankoodii baa la dhisay kadibna waxa soo degay quraan leh wa rijsun min amali shaytaani fajtanibuuh wa qurun shaqa shaytaan kamide fajtanibuuh ka fogaada waa erayo booliis lama dalban xabsiya lama sii dhisin wacyi gelin kale lama samaynin dadka looma yeedhin mujarrad iyagoo cabayo u fadhiyo wali ayaa kii dhawaaqay isagoo la inna al-khamra qad hurrimat war khamrigi waa la xaaraanimay waxay yiraahdaan kuwii kooba beegaga haystay lagu cabo dib umay kaban oo iska dhigeen kuwii afka ku haystay afka intay ku hayeen may liqina way tufeen wixii weel ku jiray waa la qubay bal weelasha la jajabiyay weelasha khamriga lagu sameeyay jiray waxa la yiri burburiye weelasha khamriga la burburiye waxay magaalada Madiina suuqyadeedii khamro dareereen khamri ayuu dareeray khamrigi markuu joogsaday waxa joojiyay waasic diiniya iimaan qalbiga galay iyo dadka loo dareemay ilaahi weynidiisa iyo aakhirad dambaysa iyo noloshan inaan lagu waaraynin iyo alla ka cabsi galay baabi'iyay ولذلك يا حديث الإمام العراقي سنة كيس جيد كشيغيو وهو تلمام يا حديثكم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعدا من نفسه يأمره وينهاه قفك إلهي هدو خير لدونه نفتيسة أي الله قسم يا مد وعدية ووراق نفره حمهنا كعلية